geesta kale xisbiga mucaaradka ucid ayaa cambaarayay xadhigii lagula kacay gudoomiye-xigeenkii hore ee gobolka Togdheer Master Guule Daahir Samatar iyo sifaha loo maray xadhigiisa sidoo kale waxa ay xukuumadda ku eedeeyeen mas'uuliyiinta xisbiga ucid rabshadii ka dhacay magaalada Oodweyne kuwaas ay mas'uuliyadiisa dusha ka saareen xukuumadda xogayaha arrimaha gudaha xisbigaasi ucid Cabdi Maxamuud Mingiste oo maanta shir jiraayid ku qabtay magaalada Burco oo arrimahaasi ka hadlaya ayaa waxa uu yiri waxa jiray arrimo badan oo isdaba jooga oo maalmihii ugu dambeeyay ka dhacayay magaalooyinka kala duwan haddii aan tusaale u soo qaato waxa ugu dambeysay tii ka dhacday habeen hore magaalada Burco ahayd in saqdi dhexe loo daato gurigiisa nin muwaadina mas'uul ah loo wada yaqaano xilal ka soo qabtay wadda gobolka waxaan filayaa haddii la doonayo in la qabto habka loo qabanayaa inay ka fiicnaan lahayd hab nooca habeenka dhaweyto arrintu u dhacday ka wanaagsan oo waxay ahayd in maxkamadda waaran looga keeno xusbi ahaan anagu waxaanu aad iyo aad uga soo horjeednaa aad iyo aad noo cambaaraynaynaa arrimaha noocaasa ee dhacayay maalmihii u dambeeyey sida aad la socotaan waxaa sidoo kale banaanbaxyo ka dhaceen magaalada Oodweyne waxaanu la soconnaa tii ka horreysay ee maalintii dhaweyta ka dhacday kontaroolka Burco ee dhinaca Berbera marka waxyaabahaas hadday sii biirbiirsadaan oo sii tarmaan ama waxay u ekaan karaan kicin iyo inuu yimaado markaa dhib aynan hadhowto xalinteedu inugu adkaato sidaa daraaddeed waxaan mar labaad uga digaya xukuumadda in ay joojiso dhinaceeda waxyaabaha falalka noocaas oo kale ah Kays Axmed Digaale Home Cable TV Burco.